أما بعد waxaynu sida sheekhu sheegay ubadka iyo rabayntooda ayaynu wax ka oran doonaa insha Allah mawduucana waxaynu ku dooranay waa mas'uuliyadda ama xilkayna saaran kuwa u waaweyn waliba haddaad tihiin hooyooyinka halkan fadhiya hooyooyin baa u badan tihiin waxaa gacanta ku haysaan dadkii soo barbaarayay qarniga iyo faca soo socdana ahaa waana aayaheeni ubadku marka in dad la maalgeliyo ama lagu tabcaabaa ka qiimo badan in duunyo lagu tabco duunyaba yuu dhigan inee qofka dadkiisa ku tabca ee sida aynu sheegi doonee diintu tilmaantay u rabeeya rajadiisu way fiican tahay waajibkiisiina wuu gutay qofka adduunyo in badan ururiya ee ubadka iska ilaawa waxaa laga yaabaa ubadkaasi inay adduunyadana ka kharaabiyaan kadibna uu noqdo khasira dunya walaakhira adduunya aakhira mid khasaara marka u horeeya waxaan xusi lahay mas'uuliyatul waalidayni can tarbiyati alawlaad waalidka xilka ka saaran rabaynta ubadka waxaynu ogaanaynaa marka u horeeyaba ubadka rabayntoodu waxa weeye badbaadintooda waa badbaadintu ilaahay qur-aanka inagu faray yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara dadkii ashahaadanaya buu ilaahay u baaqay oo wuxuu uhi naftiina iyo ehelkiina naar ka nabadgeliya sidee naar looga nabadgeliyaa ilaahay baa nabadgelyada hayee waa inaynu dadaalnaa oo aynu ku dadaalnaa sidaynu ugu canqarin lahayn aynu ugu ababin lahayn aynu u cabsiin lahayn diinta islaamka iyo caqiidada suuban waxa labaad oo tarbiyadda ubadku ay noqoto mas-uuliyadahayna saaranta u weyn diintu ina saartay xagga dadka marka la eego rasuulkaa ka hadlay sala allahu calayhi wasalam waxaanu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiin waxbaa wada raacdeen qof walbana wixii uu raacay baa la weydiin doonaa madaxweynaha muslimiintu ummaduu raacay sida adhigu u raacay sida xooluhu u ilaalinaya bahalkuu ka ilaalinaya dayicuu ka ilaalinaya duruuftuu ka ilaalinaya aabbuhuna ehelkiisa iyo ooridiisa iyo ubadkiisuu ka mas-uuliyaan hooyaduna carruurta iyo gurigay ka mas-uul tahay dumarow saasuu ina leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam maanta dumarkii dabadaa laga wadaayo kursi fuula baa la leeyahy kursi raggiiba ku xiiqay iyo siyaasad oo ay isku qabsadeen oo ay ku colloobeen oo ay ku dagaalameen ayaa la doonayaa markuu raggii kursigaasi waalay dumarkana inuu waalo kadibna ay tuuraan ubadkii iyo aqalkii iyo ay ka baxaan dabeetana sidaa xisbiyadii iyo kaambeynkooda ku aragteen dumarkii oo toodii dayacay oo ubadkii iyo aqalkii ka tegoo marada lulaya intay madaxa qaawiyeen waa lacasaanta noocaasa baad moodaa in lala maagan yahay mas-uuliyadda dumarka wuxuu nebigu tilmaamayaa inay tahay ubadka iyo aqalka iyo ammaanadaas waa ammaano weyn tan maalka waxaa ka muhiimsan ta ubadka dadkaa ka muhiimsan wax sahlan maaha aayaddaasina saasay noo tilmaantay mar kale ama saddexaad qur-aanku wuxuu inoo sheegay ammaano inayna saarantay ammaanadaasi culayskeeday leedahay ammaanadaa waxa u weyn ammaanada diinta ka sakow ammaanada dadka inaa caradna alamaanata cala asamaawaat waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula ammaanadii waan soo bandhigay baa ilaahay uli subxaana wa tacaala waxaan u bandhigay buuraha iyo dhulka iyo cirka waxaa aragteen waxa u waaweyn
mid waliba uu ka cudur daarto way ka cabsadeen ilaahay may diidine laakiin way ka cudur daarteen waxay dhaal ma kari karayn way ka baqdeen inay ku fashilmaan qofkii bani aadamka baa qaaday oo ninkii ooridiisii waxay yiraahdeen annaga amaaradan qaadayna oo ubad baanu dhalayna oo waanu dhaqayna oo waanu rabaynaynaa amaanadaasay qaad ilaa hadaanay qaadi karayn inaan waxba isaroosan iska joogaan ba heedeen way ka baqayaan fashilaadeeda marka arintaasina waa arin labaad oo quraanku inoogu cadeeyay mas'uuliyadaha in saaran kuwa waaweyn xaawalayay dumarka aan ilaahna ee ubadka in la rabeeyo waxa laga helaa fadli weyn haddaba fiirsada ana caruurtaadii baad korinaysa korintuna wax sahlan maaha waa kuwa hooyooyinku yidhi korintooda aba ka daran bay yiraahdeen kala celintooda aba ka daran korintooda macnaha si ugu rafaadayaan hooyooyinku ayay ka turjumaysaa marka haddaba inaad ubadkaaga rabayso ku dadaasho diin ku rabaysa iyo wanaag iyo dhaqan wanaagsan waxa lagu helaa janno waxana lagaga badbaadaa cadaab rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxa uu man ubtuliya min hadhihi albanati bishayn kunna lahu sithran min an-nar Aisha waxay uga warantay ruux dumaraho dawarsatay laba habloodna way wadatay xabadii timirta ahayd afka ay ku sii waday ayay labadii hablood ku qabsadeen hooyadood way iska siisay marka nabigu waxa uu qofka lagu ibtileeyo hablahan qaar kamida ee ilaahay habla siiyo ee si wanaagsan u koriya ilaahay naartu kaga xijaaba sidaas uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam marka inay daa ubadkiyo waliba hablaha gaar ahaan ilaahay naarta qofka kaga nabadgeliyo way cadays xadiidkaas uu cadeeyay saxiixa Bukhari buu ku sugan yahay xadiidka Muslimna waxa ku sugan inuu nabigu yiri inna Allaha qad awjaba laha biha aljannata aw a'taqaha biha min an-nar ruuxa dumarka hablaheeda u naxariisanaysa naxariista ay hablaha u naxariisatay ilaahay waxa uu ku geeyay jannada waxaad u qaadiyo waa qaali wax qiimo badan weyn inagu jannaynu doonaynaa hadii lagu yiri caruurtaadii hadaad hagaajiso jannaad ku helaysaa waa labadaydaba waa adduuniya aakhira labadaba waxyaabaha aynu ku gafayna waxa kamid ah qodobkaas horta waa qodobka laba qodob baan sheego mid waa mas'uuliyadda inaga saaran caruurta arinta labaad aan sheegayna waxa weeye hadii caruurta la rabeeyo oo diin iyo islaam iyo dhaqan fiican aynu ku rabayna maxaa lagu helaa cadaabkana waa laga nabad galaa jannadana waa lagu helaa maxaad u qaaliya weey arinta saddexaad aan xusi lahaa waxa weeye iyadoo qodobaysan oo dhowr iyo 10 qodob ah habka xun ee la diiday caruurta in loola dhaqmo ama korinta xun korin wanaagsan iyo korin xun baynu bixinaynaa habu barbaarinta xun ama habla dhaqanka xun ee caruurta loola dhaqmayo kaasaynu iska waaninaynaa inagoo diinteena ku eegayna markaasaynu haddana ku xigsiin doonaa dhowr iyo 10 qodob oo la xidhiidha habka wanaagsan ee caruurta loo koriyo korintuna waa cilmi dhan oo la barto weey inaga waxaynu haysanaa korinta caruurtu inay tahay caloosho loo buuxiyo iyo dhar wanaagsan oo loo geliyo taasi waa xagga jirka laakiin waxa ka qiimo badan in ruuxdiisa iyo aqligiisa la dhiso dhar fiican bayaanu qofkaasi helin iyo dhowni wanaagsan caruurta waxyaabaha aynu ka daynayna waxa kamid ah tanshi'atu al-awlaad 'ala al-jubn wal-khawf wal-halac wal-fazع inaynu markay yaryar yihiin aynu ka dayna cabsi gelinta oo hadiya jeer takhwiif baynu ku sameynaayo waxaynu nidhaahnaa waa macallinkii waa askarigii waa aabbo waa bahalkii marka ilmaha yariba wuxuu noqon karaa mid didsan waa waxan marka la yiraahdo uu didaya oo uu firdhanaya oo baxsanaya taasina sax maaha dareenkiisa kharibaysa arinta labaad aynu ka ilaalinayna waxa weeye tarbiyatuhum 'ala al-muyu'a wa ta'wiiduhum 'ala at-taraf wal-badakh inaynaan caruurta ku rabaynin jiljileeca oo fiirsan reer magaalka taa u badan ilaahayna waxa uu tilmaamay
dumarka waxyaabaha ay ku daciifeen wuxuu dhaha waman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin ragga waxay kaga duwan yihiin koolkoolinta ayaa ka qayb ka ah korintooda iyo quruxda markaa taasina waxay tilmaamaysaa sababahay uga itaal daraadeen ragga oo way isku yar kabayaan marka carruurtu in laga ilaaliyo un had iyo jeer wax kasta oo ku adadkaan lahaa ilmuhu sax ma aha ilmaha miyiga iyo ilmaha magaalada way kala adadagiin waana habka loo koriyo dee ilmuhu markuu 5 jir gaadho maqashuu raacayaa 8 jir markuu gaadho arigu raacayaa markuu sii qaangaadh ku dhowaado geeluu raacayaa kadibna bahalka ka baqan maayo cadowga ka baqan maayo guuragalka ka baqan maayo wuxuu ilmihii yeelanaya uu isku kalsoon yahay ilmuhu markaa carruurteenna halkanna waa adiga arkayoo runtii waxa weeyaan waa iska caana fadhi ama waa cagabaruur waa ilmo yaro cagabaruur haddana isagoo nin weyna ama inan weyna ayaa la daydeeyay habeenkii marka taasi sax maaha waxaa ubadka aynu ka daynaynaa waxa loo yaqaano basdu lyadi lilawlaad wa icdaa'uhum kula maa yuriiduun jirsilaaca waxaa ka mid a carruurta wax kastay codsadaanba in la siiyo aabba waxaanaan doonayaa hooyo waxaanaan doonayaa mobile baan doonayaa kabaan doonayaa dhar baan doonayaa screen baan doonayaa ku daldaluun cumar bin khadaab baa inankiisu yihi aabba waxaasaan doonayaa wuxuu yihi nacaska day oo wax kastoo doonayso miyaad cuntaa oo iminka wax kastoo doonayso waad iska cuntaa un war nafta waxaa lagu rabeeyaa waxa ay doonayso in loo diido marka carruurta had iyo jeer marka ay isxariifiyaan ama yaro qaylqayliyaan waalidku wax walba wuu siiyaa waxyaabaha lugooyay ka mid tahay waxyaabaha lugooya ayay ka mid tahay waa inaad qancisaa oo tidhaa kaa lama helayo waxaasi sax maaha oo sharcigaa diiday waxaasi kuuma fiicna dhaqaalaheenna uma fiicna raalli baad ahaanaysaa waktiga lama helayo saasaa loo rabaynayaa taa waxaa ka soo horjeeda ashiddatu walqaswatu calayhim akthara min allaazim in carruurta lagu adkeeyo nagta loo xarfiyo raashinka wanaagsan loo diido dharka wanaagsan loo diido raaxada loo diido oo la idhaahdo waa ilmo yar sidii berigii hore aynu ahaan jirin waxa subaga leh iyo waxa dufan kale iyo waxa wanaagsan waalidkaa cuni jiray ama ragga dumarkii iyo ciyaalkana waa la qadin jiray ama waxa la wixii fiican oo dhan dabeetana walaf bay qaadayaan oo waxa aabba cunaya isiya un baa la odhanayaa waxa aabbuhu cunayo waxaasaa wanaagsan waxa keenaya wixii fiicnaa oo dhan baa loo diido waa lagu adkeeyey ama waxaa laga yaabaa inuu waxadaba odhan horta waxaan aabba loo dhigay ama martida loo dhigay lagaa ilaalinayo uun maad xadidba oo tuugadii halkaa uu ku barto markaa wixii la heli karayo waa inaan carruurta laga wada xidhin loona sii wada daynin mar walba dhexdhexaadkaa lagu soconaya waxyaabaha lugooya carruurta waxaa ka mid ah alihtimaamu bilmadaahiri faxasbu in muuqaalkoodun carruurta lagu dadaalo hooyadu ay tidhaahdo anigu ilmahayga waxaan doonayaa inuu noqdo ka u cuuran ee u kuusan ee carruurta u shilis ee u dhar wanaagsan ee u kaba fiican kabihiisu waa intaa dharkiisu waa intaa ilmaha waxaa loogu dadaalayaa waxa uu cunayo iyo waxa uu cabay macnaha madharkiisa muuqaalkiisaa la eegayaa taasina runtii iyadoo laga yaabo xagga hoose ilmuhu inuu ka maran yahay xagga hoose inuu ka maran yahay oo jaahil uu yahay aan ilaahayba garanayn oo lacagtii la gelin lahaa aqoonta aynu gelinno jirka macnaa caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo ruuxdiisa lacagtaynu gelin lahay ee lagu soo saari lahaa ilmo yaroo edab lahoo hoosta ka weyn oo alla yaqaana ayaa meesha ka baxaysa qodobka 7 waxyaabaha qalooca ah ee dadka dabadaya bay isaga yar badan yihiin waalidka oo dhan meel walay joogaanba arrimahan aynu sheegaynaa inta badan waa siyaabaha ay yidhaahdaan carruurtu gaalada ha loo koriyo gaalada ay yidhaahda saa ha loo koriyo aynu ka digayno waxaa ka mid a waxyaabaha carruurta laga ilaalinaya almubaalaqatu fi ixsaani dan ilmahaaga malaha aad ka malaynayso ee wanaagsan inaanu aad u xeel dheeraanin oo marka lagu idhaahdo ilmahaagu waxaasuu sameeyey macallinkiibaa kuu sheegay oo jaarkiibaa kuu sheegay oo xigtadiibaa kuu sheegay oo saaxiibkiisiibaa kuu sheegay
oo bilayskii baa kuu sheegay oo masaajidkii baa kuu sheegay waxa lagu yiri ilmahaagu dadkaasoo raaca waxaana uu ku xun yahay dhag waalidkiiba uu xanaaqaya ruuxii dumarka ahaydba way xanaaqaysa ama odaygii baa xanaaqaya ma ilmahaygaad waxa ku sheegaysa ilmahaygu masaajidku tagaa uu tukadaayo kanuu yahay sidanu inantaydu saa maaha inankayguna saa maaha waxa la yidhi khayrku waxba kuma yeelee sharka u toogahay macnaheedu markaa waxa weeyaan ilmuhu hadduu ku wanaagsan yahay balaaya ma jirtee xumaanta lagu sheegayaabaa loo baahnaa inaad daba gasho nin baa wuxuu yidhi magaaladeennan ka mid ah oo saraakiisha bilayska ka mid ahaa nin baanu ku nidhi inamadaadu waxay iibiyaan daroogada markaasaa wuxuu yidhi madaxa intuu qabsaday carruurtaydii baa ku gafteen waa dulmiyaysaan xaal baan doonaya bilayska haddaad tihiin markaanu aragnay inuu xanaaqay oo odaygan uu ka dhacsan yahayba oo carruurtiisu halkay marayaan aanu ogeyn wuxuu leeyahy ma ilmahayga masaajidka ka soo baxee culimada la joogaa maanta halkaa la maraysaan daalimiin baati waabuna weerarayba inaanu qancinaanu doonay kadibna waanu dabagallo isagoo bahashii sita oo guriga la soo galayaanu dhab siinay odaygiina waanu u yeedhnay gacantaanu ka gelinno waxaanu waa kan sita waar ma sidataa haa halkiibaa markaa anfariiriya ama kaag ayaa odaygii ku dhacay qofkuna markuu daroogaysto noqdu daroogo ka baacamshtaraynayo dee waa qof ka shubay oo tegay oo aan la soo qaban karayn amaba qabashadiisu ay adag tahay waxa uu haystay iyo waxa laga helay baa kala duwan way dhacday magaaladeennan aynu joogno inan yaroo waalidkeed ka codsatay internet qawiya in loo geliyo guriga jaamacadna ku jirta internetka habeenkii markay seexdaan ayuunba iyadu gashaayoo waxay la xidhiidhayba siday u baadhbaadhaysay kuwan mishanka la idhaha kristanka faafiya oo norway jooga siday u sii wadwadeenay muddo ula saaxiibeenay lacag iyo wax u soo dirdirayeen boobka u weyn baabay la xidhiidhiyeenba boobka waa diinta kristanka ka u weyna ku baaqaa lala xidhiidhiyey markaa waddankaa joogay inantii yarayd shaki badan baa ku furmay diintii baa laga shaki siiyey gaalnimadii baa loo xawaasheeyey oo maaragtay loo xayeysiiyey iyo diintii kristanka ee gaalnimada ahayd sidii loo sii wadwaday waxaa lagu yidhi dee dadkan ku gumaysanaya iskaga kaalayo waanu ku dhoofin doonaa adisababa kaalay basboor baanu kuu keenaynaa halkaasaa lagaa qaadaya calaa tuul rakaab dad kaleaba loo sameeyeybo waalidkeedii iyo ummaddii iyo ehelkiiba waa laga jaray waalidkana waxay ku tidhaahdaa habeenkii baan hooye iyo aabbo aad wax u raajacaa naa waxaanad ku soo jeedaa mad hore u seexatid maya waxaan duruustaa nagu adagoo aad baan u diyaariyaayoo baadhitaan iyo daraasado naloo soo diray ayaan qoraa halkanka shaydaanka wixiisiina way qoraysaa way dhegaysatay markii dambe ayay ishayn weydayoo hooyadeed bay la murantay markaasunbaa waxay tidhi diinta islaamku waxba ahay caynkan iyo caynkanay dumarka u dulmiday waxaanay samaysay feerma cadaalad ma aha miyaanad hooye arkayn kari wuxuunay bilowday uun inay xumaantii soo neefneefto bullaacaddii ay ku dhaamiyeen ayay soo neefneeftay way soo neefneeftay waa arrin jirta weye inantii markay hooyadeeda fkaran weyday warkiibaaba la dabagalayoo waalidkii gaadhayoo markii aad loogu fiirsaday waxaa la ogaaday xaqiiqadu halkay marayso culimadii bay ugu yeedhay islaamkii baa lagu soo celiyey waa la qanciyey kadibna rakaabkii iyo wixii baa laga jaray internetkii dee bal ka warran waa qofkiiyo gurigiisii iska joogaa gaalnimo loo bandhigay qaar baa runtii sidaa diinta lagaga saaray dee adiga arkaya waa arrin aad iyo aad la yaab leh marka waalidku inuu ka malaysto ubadkiisa wax wanaagsanun oo idhaahda ilmahaygu boqolkiiba boqol wuu wanaagsan yahay oo waxaa la sheegayaba aan u dhagaysanin dhibkaasay leedahay ubadka waxyaabaha aynu rabaynta xun waxaa ka mid a ficlu lmacaasi amaama alawlaad wa iqraaruhum calayha waalidku inuu dembiga ubadka hortiisa ku sameeyo ama ubadkoo samaynaya macaasida iyo dembiga uu iska daayo oo aanu u diinin u fiirso
filimadii qaaqaawanaa bay daawanayaan filimadan kale tifiyada iyo laga soo daayo qaarkood wiilasha iyo gabdhuhu ama rag iyo dumarku isdhunkanayaan kala ajaanibta ah ayaa waalidkii iyo carruurtii iska wada daawanayaan riwaayadihii iyo jaaskii baa la wada daawanayaa wiilkii iyo odaygii ama odaygii baa carruurta hortooda jaadkii iyo sigaarkii iyo khamrigiibuu ku hor isticmaalayaa dee xaaraantii kala duwaneedii iyo akhlaaq xumadii iyo qaawanaantii ayaa carruurta hortooda waalidku ku samaynayaa waalid ceebahaa sameeyey dee muxuu ku rabayn doonaa carruurta waxba kuma rabayn karo marka rabaynta xun bay ka mid tahay waa inaad ku xisaabtantaa waxaan adiguna inaad iska dayso carruurtana aad kala dagaalanto oo aad ka fogayso waxaa ka mida arrimahaasina runtii aad bay u badan yihiinoo dumarku marka ay diinta iyo dunyada midna aanay waxba ka banayn mashquulsanayn guriga iska joogtaa odaygeedii baa usoo shaqaynaya kadibna waxay odhanaysaa waktiga waxaan isku dhaafinayaa bal inaan filimkan la socdo filim baan la socdaaye hay mashquulinina aamusa halkanuu maanta marayaa ninkii labada dumara lahaa ninkii afarta dumara lahaa naagtii ninka qarsanaysay ninkii naagta qarsanayay kii wax dhacaya tuuga ahaa waa filimkii hanad oo kale mar walba hanad baa soconaya hanad kala noocnooca ayaa soconaya oo aynu ogsoonnahay ragga iyo dumarka qaarkood inay iskuba fureenba nin baa xaaskiisii fura maxaad ku furtayoo wuxuu leeyahay carruurtii aan kaga tegayba way ka maqantay filim bay daawanaysa casho uma diyaarinayso waxbarashadoodii kama warhayso meelay carruurtu maraysaba ma oga 4 saacadood bay filimkaa hoos fadhidaan markaanu ma filim baan u diray dad iyo dunyo iyo guri baan u diray aqal iyo ubad baan u diray waaba lagu kala tegaya qoysas baa ku burburayba marka waxay ahayd waqtiga halka ay ku bixinaysa waa dambi horta inay joojiso koow ubadkeeda waxbarashadiisa casharadii ay la eegto dharkii iyo dhuuniga ay u diyaariso digriga ilaahay ay barato iyada qudhigeedu inay diinta faa'iidaysato waxaa waqtiga ay ku bixin lahayd macaasiyo dambi bay ku bixisay carruurtiina khalaas aabbaa lagu arkay waxaan hooyaa lagu arkay waaba wax wanaagsanba xaaraantii iyo macsiyadii adaaba xayaysiiyeyba uma diidi kartid hooyo soo adiga daawada aabba soo adiga sameeya arrintaasina waa arrin aad u khatar badan macaasida iyo xaaraanta ilmaha yar saasuu ku eegayaa waalidow maqaalkaaga waxa uga muhiimsan muuqaalkaaga u fiirso hadalladaad leedahay aad leedahay sidaa yeela oo saa yeela oo saasaa la yeelaa waxa isaga kaga saamayn badan muuqaalkaaga markaa wuxuu eegayaa waxaad ku hadlayso wuxuu eegayaa ficiladaad samaynayso wuxuu eegayaa sidaad u cibaadaysato wuxuu saa u eegayaa ilmaha yari dharkaad gashan tahay waraysi buu kugu wadaa carruurta weliba markay sii yaryar yihiin aanay heerkaa qaangaadhka kusoo dhawaanin in 10 jir iyo wixii ka hoose wax ku leeyahay aabbo maxaa kan la yidhaahdaa hooye maxaa kan la yidhaahdaa hooye maxaad ku falaysaa waxaan aabba maxaad ku falaysaa waa wada su-aal su-aalaha wuxuu ka arkayaa muuqaalkaagu ka eegaya marka haddii muuqaalkaagu wanaagsan yahay oo dikriga iyo hadallada wanaagsan iyo ducada iyo cibaadada iyo asturnaanta iyo arrimahaasi ay kaa muuqanayaan dhammaan wuu kaa koobigaraynaya wuu kaaga dayanaya marka ha moodin inuu isaguna caalam kale ku jiro caalamka yaryar adiguna caalamka waaweyn mar haddaa wada joogtaan isku caalam baa ku jirtaa sidaa u fiirso hooyooyinka waa arrimaha aadka u muhiimka waxaa laga ilaalinayaa ubadka waxaa loo yaqaana safaasiful umuur arrimaha liita hadallada dhacdhacay dacaayadda ay dadku isdacaayadeeyaan dumarku waa kuwan isdacaayadeeya way iscaayaan waxaasoo dhan carruurtu way wada qabsanayaan way ku wada dhegayaan dacaayadii bay qabsanayaan caydii bay qabsanayaan ubadka waxyaabahaynu ka ilaalinayna waxaa ka mid ah ixtiqaaru lawlaadi wa qilatu tashjiicihim in la yaraysto carruurta oo aan la dhiirigelinin oo halkii aad ka dhiirigelin lahayd carruurta wax walba waad xaqiraysa ad waxaad leedahay ilmo yar baa ta aamus wax wanaagsan hadduu sheega naga aamus dadka waaweyn ka aamus ciyaal baa ta adugu aamus wixii aad u sheegi lahayd waxaad leedahay maxaynu uga sheegi waa ilmo yare hadda rasuulku sala allahu calayhi wasalam kuwa yaryare 3 jirka iyo 2 jirka iyaba wacdi siin jiray wacdi buu siinayaa oo inan yaroo markaa dee isaga guriga la jooga ayuu leeyahay qulaam sami illaaha wakul biyamiinika wakul mima yaliik kan yarka aho waa mid yar oo
dhowr jiraho wax la cunaya bismillaahi dhe gacanta midigtana ku cun dhinacaa ku soo xidhiidha xeedhadana wax ka cun kaanat tatiishu yaduhu cala saxfa xeedhada ayay gacantiisa ku wareegi jirtay halkan wax ka cunaya halkan wax ka cunaya markaa wuxuu yidhi adeer halkaa midigtana ku cun dhinacaa ku soo xigana wax ka cun bismillaahina dheh waabu ku daawacmayba hadalkii ilmihii yaraa dhanna uma dhaafina wuu liqay halkaynu inagu nidhaahno dee qofka weyn baa cashar loo dhigaaye haddaynu aragnay haadihi tarbiya sayi'a dhaqankaa xune aynu ka ilaalinayna haddaynu aragnay carruurta maxaynu ku rabaynaynaa carruurta waxaynu ku rabaynaynaa kow altarbiyatu cala alcibaadati lilaahi subxaanahu wa tacaala waxaynu baraynaa cibaadada carruurta cibaadadaynu baraynaa cibaadada ilaahay waataynu abuuranahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun markaa muuqaal ahaanna waad ku tusaysaa adigoo cibaadaysanaya igu xidho baad leedahay ilmaha yar isagoon weyse qabin isagoo iska nijaasaysan hadduu doonayo oo aan dee waxba kaaga muuqanba waxaad leedahay igu xidho salaada hablaha yare igu xidhaad leedahay hooyadii aabbu waxaa loo inamada yar igu xidho safkii baa loo samaynaya sida weyn loo weysaystaa la baraya sida loo isjeestaa la baraya hadalladii odhan lahaabaa la baraya cibaadada ayaynu ku rabaynaynaa waana tuu nabiguna faray calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi carruurta 7 jir salaada ku fara 10 jirna ku edbiya macnaheedu markaa waxa weeye 15 jir kama tegi doonaan oo waxaynu ogsoonnay geela awr baa laga soo qabsadaa awrkaa waxaa la doonayaa in raray laga dhiga raray waa garanaysa oo raraygaasi waxaa la doonaya in dee alaabta la saaro oo dadka la saaro markaa awrka yaraan lagu carbiyo ee isagoo yaroo qaalin yar ah lasoo qabta si fiican loo carbiyo wuxuu noqdaa gurqaad biyo madaadsho ah oo carruurtaa lagu aaminaayo wiciyadda iyo alaabtaa lagu aaminaayo hayin buu noqdaa awrka isagoo weyn lasoo qabtana dee wax jajabaya lama saari karo maba carbismiinba marka carruurtuna waa saas oo kale intay yaryar yihiin ayay tahay in waddada lagu rido oy tubta fiican qabsadaan waa siduu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa labaad aynu carruurta ku tarbiyaynaynaa calaa tacdiimi xurumaati illaah waxa alla wixii ilaahay uu addoommaha faray diinta islaamka ay weynaynayso inuu weyneeyo oo ay ka mid tahay inaanu fudaysanin cibaadooyinka salaada inaanu fudaysan inuu soomi karo sadaqada inaad tusiso sida wax loo bixiyo dad ugu dhiibto wixii waajibaada inaanu fudaysanin waxyaabaha xurumaadka waxaa ka mid a waxaa la iska ilaalinaya inaad isagana ku barbaariso isagoo yar baad xalaasha iyo xaaraanta kala baraysa waxaasi waa dembi waxaasi waa xaaraan waxaasi naarta lagu galaa waxaasi caynkaa wey wax alla wixii xun ayaad uga digaysaa waxaad leedahay kaa iska ilaali ilaahay baa kugu cadaabaya ilaahay baa kugu cadhoonaya hooyo aabbo iska ilaali ka diintu ma ogola allah naar baa lagu galaa luqadii ugu macaaneed ugu sheegi karto waxaynu iska leenahay un maahee waa wax diinteenna ku sugan inankii yaraa uu nebigu awowga ahaa xasan la odhanayay ayaa halkaa wuxuu ka soo qaatay xabba timira oo dhulka ku dhacday oo ka mida midhihii sekadee beeraha laga soo ururiyey markaa wuxuu doonay inuu afka geliyo rasuulku waxau ihi ish amaa taclamu anna laa taxilu lana sadaqa amaa taclamu anna laa taxilu sadaqatu lana calaa macna xadiid saxiixa iska daawow tuur uf iska dhig miyaanad ogeyn haddii aynu nahay nebi maxamed iyo ehelkiisa inaanay sekadu xalaal inoo ahayn maashan yar waa timirtani waa seke xaaraan bay naga tahay iska tuur waa ilmo yar oo dhowr jira sidiibuu ku tuuray xasan manuu ilaawine xadiidkii waa qaybsan yaho ummaddu soo gaadhsiinaya marka adigu haddii aad waxa dadka kale leeyahay markuu ilmaha yara cunaya aad tidhaahda iska daa tuugay kugu noqonaysa hebel baa leh reer hebel baa leh waa ammaano xaaraan weeye iska ilaali ilmaha yari way ku buuxsamaysa waxyaaba aynu ku barabaynaynaa waxaa ka mid ah muraaqabatullaahi fi sirri waalcalan inuu addoonka yar qalbigiisa aynu ilaahay ku beerno aynu ku abuurno fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah ilmaha yar marka horeba wuxuu u diyaarsanya inuu ilaahay rumeeyo aqbalo
markaa tii baynu usii adkaynaynaa qur-aanku wuxuu ina barayaa taa inuu waalidka wanaagsani ku wacdii jiray ubadkiisa luqmaan alxakiim ninkii la odhan jiray suuradda qur-aanka suuratu luqmaan la ydhaha loogu magac daray waxa uu dhigayaa inankiisa yar casharadaa waxaa la doonayaa waa waalid wanaagsane waalidiintu inay ka tilmaan qaataan tafsiiru suurati luqmaan inaynu dhegaysano ayaa la doonayaa oo aadba hadda tilmaamaha luqmaan inankiisa yar u dhigayay aabba iyo hooyo inay ka faa'idaystaan wuxuu leeyahay yaa bunaya innaha in takun mithqaala xabatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi الsamaawaati aw fi اlardi yaأti biha allah ina allaha latiifun khabiir inankiisa yaraabuu la hadlayaa wuxuu leeyahay aabbo meel kastaba waxa jooge hadduu shaygaasi qarsoon yahay oo dhagaxa dhexdiisa ku jiro ilaahay baa keenaya ilaahay kii wax walba og weeye khabiira ee aan cidda ka qarsoomaynin bal intuu u sharxaya ilmaha yareeg caqiidada saliimka saxiixa wanaagsan caqiidada caafimaadka qabtuu qalbigiisa ku beeraya ilmahan yar ayuu u sheegayaa inuu ilaahay eegayo og yahay subxaana wa tacaala macnaheedu markaa waxa weeye innagu waxaynu ku rabaynaa carruurta inuu adiga kaa baqdo waalidka ka baqdo macallinka ka baqdo marka waxaynu aabbaa ku arkaya hooyaa ku arkaysa macallinkaa ku arkaya hadda macallinkaan kuu sheegi aabbaan kuu sheegi marka halkii ilaahay ha u gelin aabba iyo hooyo iyo macallinka laakiin ilaahay qalbigiisa ku abuuro waxaad u sheegtaa waxan inuu dee ilaahay uu raalli ka yahay iyo waxan inuu ilaahay diidan yahay arrintaas aada u muhiima markaad xaaraanta u sheegaysa waxaad leedahay ilaahay baan ku ogolayn waa lagu cadaabayaa markaad waxbarashada ku waanaysa waxaad leedahay ilaahay baa kugu jeclaanaya jannaad ku helaysaa caynkan weeye marka carruurta aynu qalbigooda ku beerno cadamada ilaahay iyo weynaanta ilaahay iyo jacaylka ilaahay waxyaabahaynu carruurta ku rabaynayna waxaa ka mid a calaa atarbiyatu calaa ana dunyaa masracatu alaakhira xikmadda adduunyada loo haysto aabbo hooyo looma noola adduunyada waxaa loo noolyahay inu soconnaa inaynu ilaahay raali gelin waxaynu u soconnaa inaynu aakhiro janno galno adduunyada waa laga dhimanaya waa laga tegaya marka waxaa loo shaqaystaa aakhiro ayaa loo shaqaystay adduunkana waa wasiiladii loo sii marayay waxaad kala fahamsiinaysa adu ha yaraysanin qofkan wacdiga aad u jeedin lahayd qof weyn sidaa luqmaan alxakiim oo kale ayaad ugu jeedinaysaa ilmahaaga yar muxaadaraad baad siinaysaa fadhi gaaraad la yeelanaysaa carruurtu waktigaad wax u sheegayso waa inay noqdaan wakti aanay isdhex ordaynin oo aanay wax cunaynin oo aanay mashquulsanayn marka cunada waa gaar marka waxbarashada dugsiga iyo qur-aanku waa gooni laakiin waa inay jirtaa saacad la kulmo oo intoo la idhaahdo hala soo fadhiisto haddaan odaygii kula joogin iminka dumarkii umaynu la hadlaynaaye weli ma dhacdaa inaa carruurta soo ururisaan oo inagan carruurta badan maasha allah ilaahay noo barakeeya mid waliba dersin baa haysataa oo carruuraheennu waa fara badan yihin tani 10 bay leedahay tani 8 bay leedahay qaar baa 15 ciyaaro dhalay oo tiimkii kubadda ciyaarayay iyo isbeerkiisiiba leh marka wixii oo dhan waxa lagaaga baahan yahay intood soo fadhiisiso tidhaahayso soo daba fadhiista wiilashiiyo gabdhihii soo wada fadhiista inaad tidhaahda haye caawa waxaa la iska wareysanayaa tarbiyada islaamka iyo diinta su-aalana waa la isweydiinayaa yaa inoo jeedinaya hadalka heblaayaa maanta ku qoran hebel baa ku qoran wixii kaleo dhan waad ka soo xidhay mobile waa la iska dhigay cunadii waa la iska dhigay duruustii waa la iska dhigay maalmaha jimcaha iyo khamiista haddaad dalxiis geyso oo aad meelaha lagu ciyaaro geyso ama miyigaba u saarta geed hoostii baa fadhiisanaysaan wakti waa inay jirto cunada ruuxda iyo cunada qalbiga la qaato ma jirtaa taas dee inaguma badna faaqidu shay laa yuctiihi hooyadii baan wax badan haynine maxay u sheegi hooyada laftigeedii ayaa u baahan in casharadii la siiyo oo iyadii aan lagu soo dadaalin marka maxay wax u sheegtaa iyada laftigeedii baa wax u sheega u baahan taasina runtii dhibkeeda ay leedahay carruurta waxyaabaha ku rabaynayna waxa kamid ah tarbiyatu ala al-akhlaq al-hasana akhlaaqda wanaagsan baynu ubadka ku rabaynayna oo la yaraysan karayn waa runta shayga la yiraahdo naxariista iyo tawaaduca kibir la'aanta aan dadka aan lagu kibrin iyo sirta oo la ilaaliyo arrimahaas oo dhan mid walba daliil bay leeyihiin mid waliba daliil buu leeyahay carruurta haddaad been ku rabayso aday kuu daran tahay haddii sirta aanad ku rabayn carruurta inay ilaaliyaan wax walba way sheegi dar yaryaroo nagnaglayaalay noqono dadkao dhan isku diroo namiimiyo miidhana haddii aad naxariista ku rabayn weydo waxaa laga yaabaa inay iyaguba islaayaanay gawda iska saaraanoo qayladoodu badato intaad soo fadhiisiso waa inaad bartaa sida dhexdooda ay isugu naxariisan lahaayeen
iyo siday ardayda ugu naxariisan lahaayeen siday jaarka ugu naxariisan lahaayeen siday xayawaanka ugu naxariisan lahaayeen neerfaha ama dhinaca carruurta aynu ka shaqaysinaa waa dhinaca iska celinta waa hooye dil qaniin kaa ku dhahoocay iska celi waa meel dagaal lagu jiro oo miyiga iyo waxba lagu dagaalamaa oo inagaan aragnay marka hooyadiiba carruurta waxay u barbaaranaysaa geeljiraha iska celi ama qabaa'ilka iska celi ama yaan cidiba soo agmarin halkii la odhan lahaa si iyo u naxariisa iyo iska saamax iyo waa walaalka dhinaca kale ayaynu ridnay marka runtii taasina waa waxaan wanaagsanayn asbaabta waxaynu kusoo gabagabayn lahayn sababaha inaga saacidi karaa carruurta inaynu rabaayadda fiican islaamka oo doonayo inaynu ku rabayno waxaa ka mid ah inaynu ilaahay kaashano subxaanahu watacaala oo ilaahay baa kaa saacidi kara arrintan oo kale siduu nebi ibraahim ba lahaa waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubni wabaniya an nacbud alasnaam ilaahay ow aniga iyo ubadkayga waxaad naga badbaadisaa inaanu sanamka caabudno waxaa laga fahmaya halkaa ducadii in carruurta loo duceeyo waynu habaarnaa hooyooyinku dee hooyooyinka o dhan maaha waa qaar ka mid ahune carruurta waanay habaaraan markay yaro dhibaan waanay caayaan soo intaa uma badna markaasaad arkaysa iyadoo u kala tirinayso caayaysa caayadii way ilmihii yaraa wuu ka baranaya iyadoo habaaraysa habaarkiina wuu ka qaybaya waanu kula coloobaya de meesha way kala kacaysaa waxaa carruurta loo baahan yahay waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a inu xalaasha ku arsaaqno ilaahay baa arsaaqada bixiye carruurta inaynu xalaasha kula dadaalno haddaynu xaaraanta un kula dadaalo oo ninkii laaluushkii uu soo ururiyo hooyadiina haftadii ribada ahayd ay soo ururiso ama waxay ribo ku keentay carruurtaasi ama qaadkii iyo sigaarkii deel wixii ka soo baxayay la siiyo way silanaanayaan diintana way ka durkayaan adigana u aayi maysid inkaarana way ka imanaya marka aynu ku dadaalo carruurta wixii aynu ku rabaynaynaa inuu noqdo xalaala xalaashana sharcigeenu wuu caddeeyey culimaduna mar walba way ka warramayaan waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a carruurta inaynu qur-aanka kariimka iyo diinta islaamka barno oo qofku markuu jaahil yahay iyo markuu aqoon leeya uu kala duwan yahay way dhacdaa carruurta qaarkoodoo waalidka hanuuniya imanka ilaahay dadku hanuuninayo isagaa yaqaan subxaana watacaala carruurta qaar baa waxay aada arkaysaa isagoo waalidka waaninaya oo hooyo waaninaya oo hablaha waaninaya inan yaroo ilaahay wanaajiyey iyo inan ilaahay wanaajiyeba iska badan marka si uu adiga kuu waaniyu kuu toosiyo bal adigu diinta islaamka ku waani oo kula dadaal arrintaas waxay kaa caawin kartaa tarbiyada wanaagsan digrigaynu u badanaynaa iyo ducooyinka ilaahay shaydaanka iyo isha iyo sharwadeenka uu kaga xijaabayo siduu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kulli shaydaani wahaama wa min kulli caynin laama waa ducooyinka aynu akhrisanayna carruurtana barayno si ay u akhristaan walaalayaal waktigu waa iska kooban yahay waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid oo soo gaagaabinaynaae dadka fiican ood carruurta saaxiib uga dhigto carruur yaryar oo wanaagsan ha israacaan goob fiicanoo wax laga barta gee masaajidada kula dadaal cajalado fiican iyo muuqaallo fiican ay daawadaan kula dadaal carruurta inaad habeen iyo maalinba raacdo sidaa raacid buu nebigu sheegay raacid looma baahna dadka la sii daynayo ee dadka xun wax ka baranaya ilmahaaga waa inaad ka warhaysaa 24 saacadood xagguu jiraa intaa uu hurdaa intaa malcaamadu jiraa intaa iskuulku jiraa intaa udhaxaysa yuu raacadee inantuma inan xun bay raacdaa inankuna inan xun maya intaana gurigu joogaa wax ku akhrisanaya qofkani ama masaajidku ku cibaadaysanaya ama saaxiibkiisan fiican buu la raacanaya casharka oo la faa'iidaysanaya marka waa inuu biisi ku yahay ama ku mashquulsan yahay waqti aad u diyaarisay almuhim waxaynu ku soo ururinaynaa ubadku waa aayaheen waa kuwii aakhiray noo soo ducaynaya markay dhimanno waa kuwa inagu abtirsanaya waa kuwa isheenu ku qabowsanayso waa kuwaynu ku faanayno waa kuwa diinta iyo dalka iyo dadkaba halaagi kara ama horu marin kara aayaheennu adduun iyo aakhiraba iyo farxaddeennu waxay noqon kartaa kolba intaynu ubadkaa ku dadaalo hooyooyinkii baynu imika la hadlaynaa ama waalidka ku fillaada carruurtiisa ee carruur wanaagsan bulshadan kusoo dhex daaya kusoo dhex dara kaalintiisii wuu buuxiyey ka ubadkii uu dhalay dayacaana waxba yuu madax noo noqonin waxba yuu ismacaanaynin waxba yuu dadka u sheegin intii ilaahay uu ku hadleeyay kol hadduu dayacay dad kalena waxba uma sheegayo aad baa u mahadsan